kaasi waxa uu ahaa xeeraryaha guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay ku sheegay inuu sharci darro yahay siideynta maxkamaddu oo ay siideysay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo maanta xoriyadiisa dib u helay. wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Islow Ducaale ayaa waxa uu muuqda hadallo iska soo horjeeda oo ka soo yeeray. wasiirka ayaa horey u sheegay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur loo xiray eedeymo laamaha ammaanka oo haystaan. xalay ayuu mar kale sheegay inuu raaligelin bixinayo taasoo aan cadeyn inay tahay shakhsiyadiisa inuu raaligelinta u bixiyay iyo inuu dawladda erga ka ahaa. hadallo u muuqda inay iska hor imaanayaan ayaa ka soo baxay wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Islow Ducaale kaasi oo ahaa mar uu ka hadlayay xariga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dawladda eedeymo u haysatay balse maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in xoriyadiisa dib loo siiyay. wasiirka amniga gudaha ayaa dhawaan ka soo muuqday shir jaraa'id oo xukuumaddu ay qabatay oo ay kaga hadlaysay xariga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur isagoo sheegay in laamaha ammaanku eedeymo ay u haystaan siyaasiga la xiray kadibna maxkamadda soo taagi doono. dhanka kale wasiirka isagoo la hadlayay duub dhaqanka ayuu sheegay inuu raaligelin ka bixinayo xariga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay yihiin wiilashoodii oo qaldamay. hadalka wasiirka ma cadda ee raaligelinta inuu ahaa mid shakhsiyadeed iyo mid dawladda uu erga kaga ahaa.